maanta iyo xaqiiqooyin ku saabsan kulanka YouTuberiska iyo wariyaasha xasan toob oo weligiis baroon ciyaarin inuu hat-trick raadiyo CKO adiga leh tababari ugu horeeyay oo Soomaali ah oo bedel ku sameeya muddo 3 daqiiqo gudahood waa fartuun balbalaarka waxaynu ku sameysay saygeeda Cismaan Dheeman shaafinha oo u eg saacada biyaha iyo xasan toob oo u eg calaamada 4G-ga inay isku feeraan baasjeer ee leedahay Shaadi Sharaf CKO adiga leh astaan TV oo rabtay inay duubto ciyaartii u dhaxaysay YouTuberiska iyo wariyaasha in laga xado zoomka iyo kaamirada CKO adiga leh in xasan toob taageerayaasha u weydiistaa funaanadiisa si xushmad leh markuu isku qalajiyana inay ka siibtaan funaanada iyo garanka shaamuugna ugu daraan sidii nin dugsidid ah CKO adiga leh ilaa iyo hadda waxa la leeyahay YouTuberada caanka ah Shaadi Sharaf oo qasnad ka xaday askari kamid ah ilaaladii garoonka alla ciil badana hadii aan taariibi lahay xilli hore saacadan waxaan qabsan lahay since me youngin leaving it aabe iyo adeer tan oo kale inay ugu dhacdo adinka ayaa sabab u ah maxaa kugu dhacay wiilkaygiiyo halkii gabar oo aan jeclay oo wadankii ugu haysay waxay iga raacday nin wato baasaboor Mareykan ah markii aan weydiiyana waxay iigu jawaabtay adiga kuma necbi noloshaadana ma necbi laakiin waxaan ka fikiray mustaqbalka nolosheeda iyo familkayga ee booska cilmicaan ku yaal iigad aan ku tahriibay hadda 25 sano jirta Yurub hadii ugu badato waxaad ka heleen nolol aabe hadii Yurub nolol laga helayo ani dagaal ma u socdaa niyo zaki fashion ereyga romantic la dhahay iga badbatay ee romantic maxaa laga wadaa warniyo waa ana xataa romantic wax laga wada ma aqaan war saaxiib aqyaara soo socday asigan weydiiyena since me youngin leaving it land warniyo aqyaaro macnaha romantiga iga badbatay ee wax la dhaho isha ereygaas yarka ma aqoon weysin romantiga lagu sheegaa waa ina xaaskaaga siisid saddexda waqti ilmahaagana aad ka dibtaa dugsiga iyo iskoolka hadday intaas romantic noqoto baashida dagaal miya wadanku shaqo ma leh haloo yeelo dhalintu shiide ma nala shuufo jeebku shili ma leh haloo buuxso shahadadu macna ma lahe ha shaqayso jooji taasi waa been wadanka shaqo waa leeyahay anigan aad ii jeedin waxaan dhameeyay kulliyadda computer science ka waxaan ahay bachelor saas ee tahay waxa ii furan meel iskugu jirto cilaaj iyo timajare waxaan ku dhaho ma aqaano mustaqbalkaaga ayaa tarar gelisay shahaadada aad wadato waxaa loogu talagalay in loogu shaqeeyo shirkadaha ugu waaweyn wadanka adigana waxaa furatay xarun iskugu jirto timajare iyo cilaaj asxaabay mustaqbalkayga waa ka soo fikiri hamigaygan waa weyn yahay meeshan waxa ugu talagalay inaan ku dhaqan celiyo hudaamun nini dansi xasan toob nidaamiye iyo shanleyste maanta waxyaabii ugu saameynta badnaa markii loo doortay xilka ra'iisul wasaarnimo Habargidir wasiirka awqaafta iyo diinta in loo magacaabo Faad Bulu Makeup Habargidir adaa sabab u ah qolka madaxtooyada ku yaalo in kale lagu raadiyo Habargidir adaa sabab u ah dalxiiskii loo aajir daynil in loo soo bedelo beerta jaadka Habargidir adaa sabab u ah qof walba oo Habargidir ah hadalka kaliya oo niyadu ku hayo waa Maxamed Xuseen Rooble oo micnaheedu tahay maalintii Habargidir roobka u daayay waxaa jirta maamaha dhahayso laa taqaf Habargidir walow kaana ciyaaluha oo micnaheedu tahay ha aaminin Habargidir xitaa ilmahooda yar asxaabay wadankan joogis ma lahan waan iskaga tagaa waxaana aadaa Yurub meeshaas aniga nolol u raadsaa wadankan maxaa ugu tagay adigoo ku noqon karo haliyay sida Ciidid Maxamed Siyaad Bari iyo ururka Iswaa'il maya aniga go'aankan waa qaatay waana ka tagaa wadankan quruxda badan sababta aa ugu tagaysid noo sheeg xalay saqdhax ayaa leegu soo booday mataga ka bixi way waxa la siiyay lindanan waxaan la dheerashin saliid la cuntay wax yar kadib haddana caloosha laga qabto shubana ka bixi way waxa la siiyay diinsi waxaan la dhahay duurka wareegis mid saaxiibkay oo Jarmalka joogana hergaba qabtay ambalaas la carto waxaan la dhahay halisa ku jirta marka ana maxaan ka joogaa wadankan adii indhaadkida samboor yar oo ku hayo alaga daaweelayahay asaa Yurub u fafakanay